أحمد عبد الله حسن وويلكي كقيب قلي ترتنكيه بفنيتك جيلك عصب كدعي مقالة مقدشو قولوا وينك سهوي صونا بندقي معجسة قرنك أحمد عبد الله حسن وحاوك كرتي بدن يهي أقون حكمة بدن يهي دليردا لحاد كودو لما يسترن يهين يساقو أقون تيسا يا عقيدة ديسا يا عقل جيسا بكوريي أولي بعد السيد إن عولبا أحمد عبد الله حقي أيو كل شيء سندك أيو الشيء تأديس وإمسا وسواشا إن بدنا أمة الصومالية كمدا كل احتبالنا يسير ما أنت أيالك كلا بحيا waxaa ku dhashay muqdisho sanadkii 1995 inkastoo dhalashada diir sheega dadka ay leeyihiin waxa dadka inta badan ka gabadaan laakiin ka gabamaayo waxa waay wuxuu ilaahay dooro waaye 1995 ku dhashay muqdisho waxbarasho أحمد عبد الله حسن أرقني هبدا إلهي سيي يعدكي سمعاني حق وحبرشدا سيدي أي يسكيه محو صوبرتي وحبرشد نوعية أيو سوقات وحبرشدا دينيك يماديك محو كيغان إمي كسي محو برتا وسؤالاتك إن بدن وبلشدة الصومالية كمدا أي كمر قديني مانتا أي سوون أكسن والقيان يا قرش مقدشو وحبرشدي دي هيركو هسوحا كسو بلابي إلا هيركا دحي دوكسيجي إندولياشا النور أو إلى هذا مقارنة مقدشو كشقيو معلمين تودي يمام لك أن أبو سلامة يسكول كاس أو رنتي أها يسكول كي محالي رهدا aad ii soo gacan qabtay waagii waxbarashada ka soo bilowday aad waxbarashada si hoose heerka hoose iyo dhexe aan ku soo dhameeyay waxa iigu xigay dugsiga sare waxa ku qaatay iskoolka adalti huludaag oo ayagana ardayda macallimiinta macallimiinta aan halkan ka salaamayo oo aan leeyahay salaana adiga mudantiin sharaf leedihiin aad maxaa leeyahay aadan kugu xiisay waxa kale dugsiga marka sare marka halkaas ugu gudbo waxa hadda dhigtaa jaamacadda Soomaaliya UNESCO oo arday ka tahay arday hadda ahay waxaa dhigtaa waliba dadka أحمد وحاو برتي يا وحاو إمك برتبا أرقني هدبا تدكي باهيها قار كاقبي برقي هوري يا إمك تدك باهيها قار كاقبا محايكو كلا دويه فرق النوعية أيها ودحية حق مورالك يا وحقبتك يا ولبا تدالك وسؤال باهن جوابتيدا أمانك أمة الصوماليين تحت بالنا يسير horta markaan dhahno dadka baahiyaha gaarka ah qabo waa in jabsanay jirtay ay jireen way jirtaa laakiin hadda ma dadka ha ogaadeen sanadka 2020 aad dhow maxaa la yiraahdaa adduunka casriyo noqday dadka baahiyaha gaarka ah qabana waxa waay wax badan oo soo kordhay sidii hore maahan waagi hore waxbarasho meelin haysan laakiin waxbarasho waa alxamdulillah hadda aad maxaa la yiraahdaa waxbarashadii wadanka soo gaartay qalabkii waxbarashada ee bareelka soo gaaray magaalada muqdisho iyo guudaan Soomaaliya waxbarashadii dugsiga oo dadka arag sheekada kale ayay ka daran tahay su'aal waliba su'aasha kale ayay ka xiiso badan tahay Ahmad Abdullahi Hassan sidee ayay isku yihiin aaladda internetka maadaama qarnigan aynu ku jirno yar iyo weynba dadku lagu fooraro moobilka iyo weliba kombiyuutarka sidoo kale aaladee ayuu isticmaalaa oo weliba ku isticmaalaa internetka Axmed waa su'aal Soomaalidu ay had iyo jeer ay isweydiiyaan una baahan jawaabteeda aad haddaba sida arkaysaan telefoonka gacanta ku haystaa baraha bulshada magaalada maanta waxa waaye sida ay sheegtay hal guri ka dhigan adduunka dhan oo internetka la wada isticmaalo lagu wada jiraa
dadka aragga la'na kama maqna internetka gaar ahaan aniga aad u isticmaalaa Facebook, YouTube, imo, WhatsApp and TikTok xataa waa isticmaalaa dadka laakiin waxay dhihi doonaan TikTok saa u isticmaashaa la dhihi doonaa laakiin TikTok xataa waa galaa TikTok waa galaa أحمد عبد الله محمى إنه استعماله واتساب فيسبوك تيك توك يا انستغرام لكن سيدي أيوة صورة قشي إنه استعماله آلدها الأباهن أرقى أما إندها وسؤال قفكستا وعبد أحمد أركا ويسويدين أما أباهن يهي توابتين waxay ugu soo gashay telefoonka isticmaal waa iPhone shirkadda soo saartay waa Apple oo Mareykanka laga leeyahay waxay ku soo dartay barnaamij la yiraahdo voice over oo ka caawinayo macnaha qofka aragga la caawinayo double tap uu leeyahay barnaamijkaas laba mar taabanaysa marka wax qoraysid barnaamijkaasna wuxuu gaar u yahay dadka Ahmed waxa uu inoo sheegay inuu aad u isticmaalo social media خاصة فيسبوك هذا سيدي أيو قرالة فيسبوك لا صادقو أما فرينس كيس صادقان وآخريا قرالة دودا سيدو كله سيدي أيو يسقو قرالة دقا برت فيسبوك ما دام آلة فيسبوك أي أباهن تاي أرك وركو نجيجا أما اللفت برتيدو أي تاي إن أدوح أركي كرتو وسؤال إن بدنا برشة الصوماليود ما نكودا كسر دادا مركز مغلان أحمد أيا استعمالا آلة فيسبوك هذا محوك جوابه محاسة ويري أحمد تاسنا سيكون صور لا أرتا دا كده فيسبوك أتكلمي ماذا أديات فيسبوك سوق لا دا كده قرآن ما آخر يرتم إسكينيس ومس قبنيس وحاوادت كل حيس لين محا إن كان سو فيسبوك قال قرآن ما آخر كرين ده لا إيه مركو حاول شيء جاياتك إن الآن رسمي أعطوا حتى على قلبي على قدر ما أرجع ماشى إن الآن رسمي ماشى كتب قلبي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في صدور الله إليها إن الآن فنت قلبي جواي مركز تاسو يدير جلس أوجد يجمع جلس إن أنا عن آخر يوم حالي ده مسج أما وحياة عادي لو سوق القري بل نحاول يوجدوا تليفون كآيفون وكلسوني مورال نيد وناكسن يا قلبي صافية يا ددال أو إسبهايستي أو كموقتا أحمد عبد الله حسن يا سلام هضبا شيكا بشيكو أي كدر انتهي سؤال كلا أي كحسب انتهي فيسبوكو وحرد الشكاسيكا يا إيربود كعالمي دا إحاوليدو inta hagoogane ay ka soo degto amaba ay ka duushaba haddaba axmed cabdulaahi xasan intii uu isticmaalayay aaladda facebooka ma iswajaheen haween ama habaarqaba jacayl oo aan nixinba haddii ay iswajaheenna sidee ayay isu fahmeen sideese ayay ugu suurta gasha inay wada hadlaan oo ay gorfeeyaan xaaladahooda asaasiga waa su'aal u baahan in la isweydiiyo muxuu kaga jawaabay axmed muxuu sayid yaa hadlaayo ama qof dumar kula hadlaayo yaa markii sheekada cabaar socotay oo qoraal askuula ku wada sheekaysaneen markii gabagabada mareysay yaa rabay inaan ka tago oo maxaa la yidhaha qadka iska xiro marka waxaan jeclaystay inaan la wadaago inaan ahaa qof arag la markii aad cabaar sheekaysatay inaan la wadaago kadib fariina u qoro waxaan dhahay qof arag la sidee u aragtaa waxay ii soo qortay waxaa ka filin oo ah maxaa isku habaaraysaa indhaha ilaahay kuma tirna maxaa isku habaaraysaa indhala-aan maxaa isugu ridaysaa ay soo qortay yaa salaam alla ilahe waxaan yaray ayaa ka dhacay axmed cabdulaahi xasan waa mucjisadii guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu la yaabka badnayd qarnigan aynu ku jirno isagoo arrin walow soo bandhigaba arrintii hore aad ku ilaawaysay codkii wanaagsanaa uu soo bandhigay ayaynu la yaabsanay
waxaabaynu ku ilownayba waxbarashada iyo aqoonta u bartay yaa salaam aqoontiiba waxaynu ku ilownay dhanka facebooka whatsappka instagramka iyo tiktokka isagoo araggiisu maqan yahay qaabka wanaagsan uu isticmaalay taaba waxaa ka sii daran haweenka ayaa midba midda ay ka qurux badan tahay uu gacan haadinaya oo weliba ay isfahmayaan waa mid kaloo ka sii daran sidoo kale waxaa biyo dhigtay kalsooni iyo weliba caqli wanaagsan niyad karti iyo raganimo yaa salaam hooyadii iyo aabbihii dhalay kumay khasaarine waa ay ku faa'iideen axmed cabdulaahi xasan waxa uu farriin u daraya rag badan oo laxaadkoodu dhammaystiran yahay oo habeen iyo maalin niyad iyo mooraalku ay ka jabsan yihiin waxna aan qabsanin gidaarada iyo waddooyinka qaad yar ka cunaya iyagoo aan waxba baran noloshoodana inay dib u socdaan mooyaane aan horeba u soconin laxaadkoodii iyo araggoodiina way qabaan farriin cad ayuu diraya sidoo kale axmed waa wiil dhallinyaro ah oo u baahan in tujaarta iyo weliba ganacsatada iyo sidoo kale dowladda soomaaliya ee la magac baxday nabad iyo nolol inay gacan qabato maadaama uu dhankiisii ka soo dhalaalay oo weliba dadaal muujiyey soomaalidu ma taqaano qofka wax qabsaday sii dhiirigeli oo sii baritaan laakiinse ku jubay taqaanaa taasina ma wanaagsana gebagabadii waxaan halkan hambalyo uga diraya iyo weliba bogaadin muuqaalkan quruxda badan leh iyo weliba waraysigan wanaagsan leh wiilka dhallinyarada ah ee ka soo qaaday axmed cabdulaahi xasan anigoo u hambalyeynaya bahda badda cas meedhiya oo muuqaalkan aan ka soo xigtay weliba waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed ay daawanaysa muuqaalkanoo dhammaystiran waxaad ka helaysaa badda cas meedhiya linkiga xagga hoose ayaan kuu soo dhigaya daawo oo booqo oo weliba sabskraaib saar waayo shaqo wanaagsan ayay qabteen bogaadin ayay mudan yihiin gebagabadii bulshada soomaaliyeed ee nagu xidhan sidaad u aragtaan aragtidiinna ka soo dhigta wiilkan dhallinyarada oo fiidbaagiinna ii dhaafa waa bahda walidaad t v oo maanta ka duldhaantaynaysay magaalada muqdisho iyo axmed cabdulaahi xasan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu dhiirigeli habeen iyo maalin dhiirigelintaadu waa noo muhiim waxaana ku xidhan dardargelinta shaqadayada iyo hawlahayaga sabskraibe noo saar gambaleelkana furo haddii hore aad nooga mid ahaydna waad ku mahadsan tahay wakhti kasta iyo meel kasta ood wakhtigaaga wanaagsan nagu bixiso barnaamij daadiyuuna waa daakir saalax oo idin leh wasalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.